asxaabta commentiga noo soo dirtay aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa. Haddii aad noqoto qofka ugu horeeya ee comment noo soo qora, fiidiyowga xiga halkan ayaan kuugu xusi doonaa. Weliba waan kaaga mahadcelinaynaa. Comment, like iyo share waa inoo muhiim. Haddii aad tahay qof noogu cusubna subscribe saaro channelkeena. Habeen walba waxaan soo gudbinaa sheeko horror ah oo cabsi leh. Mahadsanid. run ahaantii sheekadan caawa aan idin tawinayo waxay ka dhacday waddanka Mareykanka ah. Dulucda sheekada ayaa ah nin darawal ah oo xilli dambe haween wada socday. Ninka darawalka ah maalinkii oo dhan ayuu magaalada ka shaqaynayay. Xaafadiisana waxay ku taalaa meel tuulo ah. Habeenkii cabaar markuu sii socday ayuu wax isdhahay caruurtaada bal hore ugu qaad cunto yar. Kadibna wuxuu gaaray maqaayadda McDonald. Kadib darawalkii ayaa istaagay. Waiterkan waa iska hurdaysay. Hoon ayuu u yeeriyay. Waiterkoo careysan ayaa ku yiri, maxaad hoonka u yeerinaysaa? Waa xilli dambe haween. Wuxuu ku dhahay darawalka, bal cash isii, waana degdegsanahay. Waiterkii sidii ayuu dalabka u qaaday. Ninkii darawalka ahaa meesha ayuu taagnaa cabaar. Keligiisna ayaa taagnaa. Geesaha ayuu iska eegay. Gudaha ayuuna sidii u soo galay. Markuu fadhiyo xoogaa ayuu meesha wadada dhanka kale wuxuu ka arkay naag wadada hareeraheeda fadhisa. Naagtaasna waxay wakeed wax laga baqo, ayada oo dhan afkeed ayay mar sekad isku kala furtay. Ilka waaweyn oo jajabsan ayay lahayd. Kadibna waxaa kaaga sii daran tinteedana waxay ahayd tin oo inaba aan caadi ahayn. Kadib darawalkii asagoo naxsan ayuu indhaha taagtaagayay. Haddana wuxuu arkay naagtii oo soo istaagtay. Aad iyo aad buu u baqay. Wuxuu u qayliyay. Waiterkii meesha joogay albaabka ayuu isku soo xiray. Runtii darawalka markaan waxa la hubaa inuu baqay. Waa uuna qaylinayay. Wuxuu ku dhawaaqayay, bal iga soo gaara. Waxaa si xoog loo soo gargaraacayay meeshuu isku soo xiray darawalka. Kadibna isla maqaayadii gudaheedii ayaa waxa soo baxay waiterkii oo meesha adeegii soo diyaariyay. Waiterka ayaa ku dhahay, dalabkaaga waa diyaar hoo. Kadibna darawalkii ayaa ku dhahay, halkaan halisteeda ayay leedahay, iska ilaali. Naag ayaa maanta oo dhan halkan fadhisay oo aan ka naxay. Waiterkana wax dhib ah ma leh ayuu dhahay, waa iska caadi, iska soco. Darawalkii ayaa ku dhahay, bal islaali, meeshan halisteeda ayay leedahay. Naagtii waiterka ahayd waxay dhahday, annaga skurid ayaan leenahay, waxba kama baqayno. Sidii ayay ku soo kala tageen. Cabaar ninkii asagoo yaaban, darawalkii markii uu wadada ku sii socday ayuu wuxuu maqlayay wax shanqar oo kale ah. Runtii aad iyo aad buu u naxay. Kadibna wuxuu daaray air conditionkii gaariga ku dhignaa. Air conditionkii ayaa isku bedelay mid kulul. Kadibna haadku wuxuu ka arkay in naagtii ay u saaran tahay. Runtii markaan aad iyo aad buu u baqay. Markaas meel maqaaxi ayuu joogay. Haddana gaarigiisa ayuu ku dhex jiraa. Aad iyo aad buu u baqay darawalkii. Asagoo naxsan ayaa dhidid badan ka soo daatay. Gaarigiina waa u waday, weliba si xoog ayuu u waday. Waxay ku dhahday naagtii, aniga miyaa iga baqaysaa? Waxba ha iga baqin. Haddii aad sii qayliso dhiigaaga ayaan cabaya. Darawalkii asagoo naxsan ayaa wuxuu ku dhahay, may sidaa ha ii gelin. Kadibna shaah ayay soo baxsatay oo ninka darawalka u watay. Wuxuuna ugu talagalay inuu cabo darawalka. Wax uu sameeyay wuu garan waayay darawalka. Aad iyo aad buu u baqay. Shaahii ayay daadisay. Kadibna aayar ayay ninkii darawalka ku daadisay. Asigoo naxsan oo qalqalsan, wax uu sheego kala garan waayay ayuu qayliyay. Wuxuu ku dhahay, walaal, bal ii cafi, ii daa, waan ku baryaayay. Reerkayga ayaan u socdaa, please ii cafi. Meesha rabtid waan ku geenayaa.
kadib naagtii waxay ku tiri gaariga qabooji, si xoogan ha u wadin haddii aad jeceshaa naftaada. kadib darawalkii hadalkii ayuu qaatay, asagoo weliba ka taxadirayay in gaarigii uu qaboojiyo. kadib wuxuu ku qasabtay inuu istaago meel oo aan darawalba aan istaagin, baabuurtan in badan aanay istaagin. meeshaas waxay ahayd meel duur ah. kadibna waxay ku qasabtay in ay gaariga istaajiso. haddii aad gadaal soo eegto waan ku dilayaa, gaariga baakin geli, waana kaa degayaa, hana soo eegin gadaal. darawalkii oo careysan ayaa reefis u soo qaaday gaariga, naagtiina ayuu sidii ku dilay, weliba gaariga ayuu ku jiiray. aad iyo aad buu carasnaa. markaan darawalka naagtii heer aakhiraad camal ahayd wuxuu ka jebiyey lugteedii, weliba aad bay u qaylinaysay, dhiig fara badan ayaa ka yimid. kadibna waa ay soo istaagtay iyadoo jiisaysa oo soo cararaysa. si dhaqsi leh ayuu darawalkii meesha uga soo baxsaday, kadibna aad iyo aad asuu u shalaynayay. maalinkaas ayaa ugu dambeysay in uu darawal sii ahaado.